sheegay waxa fariin iyo salaan soo faray fariin iyo salaan aadan barre ducaado oo madaxweynuhu uu amar siiyay inuu meel ku diray saaka oo inoo iman lahaa yaa yidhi dadkana ha laygu salaamo waana idinla jiraa alxamdulilah intaa markaan ka soo tago waxaan jecelahay microfonka asmaqalo sheekaa la galay microfonka waxaan ku wareejinayaa siyaasiyiintaan u gudbinayaa say u kala mudan yihiin ayagaa yaqaan laakiin waxaan jeclahay marka hore ninka aynu fadhino gogashiisa oo ah mashmuuc yuusuf xasan ayaa ku soo dhaweynaya xildhibaankeenni weeye sacad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا والسلامي ولا ليال وحندونا يا إنان باللابنو قبت لواد حفلة كنت غير إنه يسبدل ك نبدأ يسبدل كفي عنا كدعي سومالي ستيت أو دمانت نوتي بعدين marka ugu horeysana waxaan doonayaa inaan iskiin baro ama se aan aqoonsado mudanayaasha xildhibaanada waxaa ugu horeeya gabnarka wajeer maxamed cabdi waxaa la socda ku-xigeenkiisa axmed weerar baan anugu aqaanaa waxaa ku xiga ku-xigeenka gabnarka gaarisa cabdi dhaqane oo halkaas u soo wareegay waxaa nala jooga senatarka qiimaha badan leh ee ka soo gala Garissa senator Yusuf Haji adeerkan waxaa nala jooga CS-ka Maxamed Cilmi ma baxay oo baxay waxaa kaleeto nala jooga xildhibaan Junet oo Migori Suna nooga yimid Senator Major Bashir ayana la jooga MP isku guddi baan waliba ku jirnaa marka waa MP waxaana la jooga xildhibaan Dr. Omar waxaana la jooga nin xildhibaan ah wasiir ku-xigeen ah jiray Senator Culu ayaana la jooga xagga dambe waxaana la fadhiyaa mas-uuliyiin jamhuuriyadda Soomaaliya nooga yimid uu ka mid yahay waxaan la joogay oo baxay wasiir Xalane wasiir Cabdullaahi Cilmooge waxaana la joogaa Shuuriye waxaana la joogaa Jooxa soo dhawo walaal iyo ambassador Cabdikariim oo asaguna Mareykanka imiga ka yimideena soo maray oo dhamaantiinba wada soo dhaweynaya waxa kale oo intaasi noo dheer anigoo iqaabo igu noqon doona haddaan sheegin duqeyda xaafadayda Islii oo aad u fara badan gudoomiyaha Macalin Ibrahim Dahir Sheikh Haji Ismail Junet mzee yuko hapa hujaniambia Sheikh هذا سودو وكفر حسنا قدومية هني هنا تحسن قولي شيخ أبو بكر أي حاجة دم فنية تغيرنا كمنا شيخ محمد شكور هون هلكا كواركو شيخ محمد عثمان بن شيخ محمد عثمان
iyo sheekh cabdiraxmaan culimmadeen oo fara badan maanta oo dhan baan wadi karnaa waxaa kaleeto oon aad iyo aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha gobolka soomaaliyeed Somali State Mustafa Maxamed Cumar aabihii inuu nala joogo adeer soo istaaga ku aragna salaamu calaykum soo dhawow marka waxaan si degdeg ah ugu soo dhaweynayaa oon jeclahay xildhibaanada inaan hal minute midkiiba siiyo anigoo ku bilaabaya walaalkay Meja Bashiir Kaale 1 minute baad haysataa af Soomaaligaan ogaanaynaa heerka uu joogo maanta inaad 1 minute السلام عليكم markuu waraysa aad iyo aad u mahadsantihiin aniga maqta ciidamada ka shaqeyn jiray over 20 years so warqar Soomaaliga iyo af Ingiriiska iyo af Soomaaliga waan isku daray balkana aan leeyahay mid ugu horeysa horta aad iyo aad u mahadsantihiin xafladan looga yeerteen xafladan waa xaflad aan ku taageerayna dawladda cusub oo Ethiopia idil ah iyo dawladda cusub iyo deegaanka Soomaalida annaga haddaan nahay madaxda la soo doortay oo Kenya 100% madaxweynaha Mustafa Cumar waa taageersanahay Prime Minister Ethiopia Ahmed Abiy 100% asagana waa taageeranaa party leader-ga walaalkayn Ahmed Shide asagana waa taageersanahay marka jumla annaga haddaan nahay madaxda meeshan joogto waa in taageersanahay waxaan rabaa inaan sheego markii calaamasaar ay dhici doonto aniga khaasatan waxaan rabaa inaan dhaho madaxda meeshan joogto aan wada tagno meeshaan tagna anu gurmad aan ka soo qaybgalno wallahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh MashaAllah well done you perfect Mheshimiwa Mohamed Umar please Omar